Waa haweeneydii ka soo xaday dukumentiyada jasiiradda Jeffrey Epstein oo xog badan bannaanka keentay qaabkii meesha lagu geeyey iyo sidii dukumentiyada muuqaaladii laga duubi jiray madaxda iyo dadka uu cuni jiray ay u soo duubtay iyo waxyaabihii jasiiradda ay ka soo qarxisay. Waxa ay ka sheekeynaysaa arrimo badan oo xasaasi ah. Waxa ayna tiri inaan aamuso waxaan maalintii ku qaadan jiray $200. Taasi waa lacagtii ay i sii jireen si aan u aamuso oo aan u iloobo wixii ka dhacay jasiiradda Epstein. Laakiin rag ku labisan suurad qaali ah ee jasiiradda Epstein u imaan jiray si ay gabdhaha 10 jirada u xoogaan hilibkoodana u cunaan, waxaysan ogeyn hal arrin oo ahayd inaan hayo ama hayay cadeymahooda. Waxaan jiray 22 sano. Maalintii waxaan ka shaqayn jiray hotel, qaybta nadaafadda ayaana ka qaabilsanaa Hotel Marriott. Habeenkii maqaayad ayaan ka shaqayn jiray si aan nolol u helo. 3 bilood ayaan kirada guriga dib uga dhacay. Deynta jaamacadda ayaa si aad ah igu cuslaatay. Hooyadayna mar kale ayaa la dhigay hosbitaal. Iyadoo xaalkaygu uu aad u adag yahay oo aanan aqoonin meel aan ciirsado, ayaan maalin maqlay hadalka haweeney hotelka qayb ka deganeed oo ku hadlaysa taleefan oo shaqo ka sheekeynaysa. Waxay ahayd qof iga duwan gabi ahaanba, si qurux badan u labisan una muuqata heer sare inay tahay. Waxay xirnayd suud midab kareem ah leh oo qaali ah. Waxay ii sheegtay inay u shaqayso qolo taajiriin ah. Waxay tiri waxay u baahan yihiin shaqaale soo dhaweyn oo muddo 1 toddobaad ah u shaqeeya. Shaqaduna ay tahay nadaafad, cabitaan iyo adeegid howl fudud. Mushaarku wuxuu ahaa $200 maalintii. Lacag caddaan ah oo kaash ah ayaa lagu siinayaa muddo 7 maalmood ah. Taasi waxay ka dhigneed $1,400, lacag ka badan inta aan ku shaqeeyo bil anoo ka shaqeynaya 2 meelood. Waxay i tusisay sawirro qurux badan oo qasri ah, xeeb ciid caddaan leh, geedo timireed. Waxay kaloo tiri safarka waxaa lagu tegayaa diyaarad gaar ah oo private jet ah. Waan aqbalay, waxaana isu diyaariyey safarkii. Diyaaraddu waxay ka duushay garoon yar oo ku yaalla New Jersey subax Talaado ah. Diyaaraddu waxay ahayd mid casri ah oo qurux badan, kuraas maqaar ah leh. Cabitaan ayayna siiyeen. 3 gabdhood oo kale ayaa ila saarneyd diyaaradda: Sarah oo 18 jir ah, Melissa oo 24 jir ah, iyo gabar timo madow leh oo aan magaceeda la ii sheegin. Taleefanadeena iyo baasaboorradeena waxaa nagala qaaday inta aanan tegin oo diyaaradda aan saarnayn si loo ilaaliyo sirta martida iyo dadka soo booqanaya jasiiradda, ayay yiraahdeen. Markaad baxaysaan waa la idin celinayaa ayaa nagula yiri. Waqtigaas wax badan ma aanan ogeyn oo moobilkeena si fudud ayaan u dhiibnay. Jasiiraddu waxay ahayd meel aad u qurux badan oo indhaha soo jiidanaysa. Ciidda xeebta waxay ahayd caddaan nadiif ah, biyuhuna buluug dhalaalaya ayay ahaayeen. Qasriga ku yaalana wuxuu u muuqday sidii meel filan in laga duubo loogu talagalay. Markii nala dejiyey waxayna geeyeen qolal aad u waaweyn oo leh sariiro waaweyn iyo musqulo ballaaran oo ka weyn gurigeennii. Laakiin hal arrin ayaa markiiba dareemay: albaabada qolalka gudaha lagama furi karin, bannaanka ayaa laga xiri jiray. Habeenkii ugu horreeyay ayaan isku dayay inaan albaabka furo, balse kor ayuu ka xirnaa. Subaxdii xigtay markii arrinta aan weydiiyey mas'uulka shaqaalaha, waxay ii sheegtay in tani ay tahay ammaankeena darteed. Anigu lacagtaas ayaan u baahnaa, taas ayaana ii muuqatay. Sidaa darteed ma aanan ku dhiiran in su'aalo fara badan aan sii weydiiyo ama shaqada aan ka tago. Maalintii ugu horreysay wax walba waxay u muuqdeen kuwo caadi ah. Waxaan quraac ugu adeegnay rag ku labisan suudad qaali ah. Gabar kasta nin gaar ah ayaa loo xil saaray inay u adeegto. Ninkii aniga la ii qoondeeyey inaan u shaqeeyo wuxuu ahaa nin da' ah, sida qof awoow ah. Fiidkii waxaan ka helay $200. Waxaan naftayda ku qanciyey in tani ay tahay lacag fudud, inkastoo gacmahaygu gariirayeen markaan wax shubayay. Inkastoo kaamirooyinka meel walba ay ku xirnaayeen, shaqaalihii hore u joogana aynan awoodin xitaa inay indhahooda nagu eegaan, haddana waan ku qanacsanaa shaqada halkaasi aan ka wada maadaama lacag fara badan aan qaadanayay. Haweeney da'deedu ku dhowdahay 50 jir ayaa jikada iigu soo gashay. Si hoose ayayna igu tiri, ha cabin cabitaan aadan gacantaada ku shubin ama aadan ku suubin. Markii aan weydiiyey waxay igu tiri, meeshan waxaan ku xiranahay 2 sano, waxaana la ii keenay mar hore sida adiga lagu keenay ayaa annagana naloo soo qiyaamay. Haatan waxaa tahay maxbuus oo adigu isma ogid. Kadibna way iga tagtay, mana aanan arag mar kale. Maalintii labaad waxaana la siiyey cabitaan miro ah oo aad u macaan, midabkiisuna uu casaan yahay. Miro yaryar ayaana dul sabeynayay. Waxaan cabay kala bar, balse wax yar kadib waxaan dareemay inaan kabuubyo noqdo oo kale.
Shantii maalmood ee xigtay, xasuus caadi ah ma aanan lahayn. Waxa kaliya ee maskaxdayda ku haray waa marmar maskaxdaydu inay soo laabanaysay waqti kooban oo kaliya. Muusig deggan oo si joogto ah u socday, jirkeyga oo xarka lagu xiray ayaan soo naaxay. Gacmo badan ayaa i taataabanayay, niman fara badan ayaana igu dhagayay. Qosol meel mugdi ah ka soo imaanaya ayaan maqlayay. Iftiinka kaamirooyinka bilqileynaya waa arkayay, iyo cirbado saacado kadibba marba la igu durayay, ayagoo igu leh waa fitamiino ee iska seexo. Waxaan xasuustaa Saara oo hooyadeed ku qaylinaysa. Marar badan ayaa la aamusiyay, iyo gabadhii timaha madoobeed oo iyadana qaylinaysa kuna hadlaysa luuqad aanan fahmin, dabadeedna iska aamustay. Mararka qaarkood markii aan soo miirsado waxaan indhahayga ku arkayay rag wejiyadooda aan si cad loo arkayn, balse codkooda uu si aad ah ii soo gaarayay. Codkooda wuxuu ahaa mid kibir iyo faanid ay ku dheehan tahay, iyagoo iga koreeya anigoo wax dhar ah aanan wadan, siday doonaanna iga samaysanaya. Markaas ayaan si dhab ah u fahmay inaanan ahayn shaqaale ama qof ixtiraam loo hayo, balse aan ahaa shay la soo iibsaday oo kaliya muddo asbuuc ah. Hal daqiiqo ayuu midkood laabtoobkiisa oo furan uga tagay meesha. Markii uu musqusha galay, anigoo og inaan halis ku jiro, ayaan si degdeg ah faylal uga guuriyay kombuyuutarka kuna shubay USB meesha yaalay oo aan ka helay miiska dushiisa. Faylashaasi waxay ka koobnaayeen magacyo, taariikh, muuqaallo, sawirro iyo waxyaabo argagax leh oo laga duubay gabdho jasiiradda joogay. Gacmahaygu si daran ayay u gariirayeen, balse ugu dambeyn USB-gii ayaan ku guuriyay boorsadayda ayaana gees ka geliyay. Maalintii shanaad ayaan si dhab ah u soo jeestay, waxaana ku jiray isla qolkaygii. Maalintii shanaad ayaan xoogaa qof caadi ah noqday, waxaana ku jiray qolkaygii oo aad loo nadiifiyay. Anigoo xiran dhar cusub oo aan anigu lahayn ayaan soo kacay. Saara meesha kama muuqan, gabadhii timaha madoobeed lahayd sidoo kale waa la waayay. Melissa way joogtay, laakiin way indha-beeshay. Melissa cirbadihii lagu duray ayaa indha-tiray, waxayna ku jirtay xaalad aan caadi ahayn. Markii nala celinayay, waxaa noo yimid nin xiran suud qaali ah. Wuxuu noo sheegay in gabdhihii kale lala haray oo jasiiraddu ay u baahan tahay. Wuxuu si faahfaahsan iigu sheegay wax walba oo aniga ii khuseeya: lambarka qolka hooyada isbitaalka ay kaga jirtay, ciwaankeyga guriga, iyo waddada ay walaashay u marto jaamacaddeeda. Wuxuu i tusay sawirro cusub oo laga qaaday dadkii aan jeclaa. Waxaa sawirradaasi la qaaday intii aan jasiiradda ku maqnaa. Waa sawirradii qoyskeyga, hooyaday, walaashay iyo asxaabteyda. Wuxuu kaloo tusay muuqaallo nalaga duubay aniga iyo rag fara badan, kuwaas oo i xoogaya. Laakiin xilligaasi waxaan ahaa qof daroogaysan oo aan wax war ah iska hayn, una muuqda inaan raalli ka ahaa wixii halkaasi ka dhacayay. Wuxuuna igu yidhi, adigu weligaa halkan ma aadan imaan. Wuxuu gacantayda geliyay fayl ay ku jiraan caddeymo been abuur ah oo muujinaya warqado sheegaya inaan fasax ku tagay jasiiradda Miami. Wuxuuna si cad iigu yidhi, haddii aad ka hadasho wixii aad soo aragtay, ogow, hooyada ayaan ka bilaabaynaa oo waa ka takhalusi doonaa. Ayaa nagala dejiyay airport yar oo ku yaala Fort Lauderdale. Taleefanadeennii waana la siiyay. Guriga aada oo aamusa ayaana la yidhi. Gabadhii kale ee ila soo laabatay waxay dhimatay 6 bilood kadib. Wararku waxay yiraahdeen overdose ayay u dhimatay oo lagala jeedo daawooyin xad dhaaf ah inay isticmaalaysay ama la siiyay. 9 sano ayaan anigu aamusnaa oo guriga aan deganaa waan bedelay. Magacaygii, noloshaydii, wax walba oo aniga u saabsanaa waan bedelay. 3 bilood ka hor ayaan si toos ah u arkay haweeneydii shirqooshay, iyada oo la hadlaysa gabar indhaheeda ay ka muuqdaan rajo xumo. Waxaan ogaaday inay weli howlihii ku jirto, laakiin waan isaga tegay. Waxaan go'aansaday inaan si nidaamsan u aruuriyo oo aan u qoro dhammaan wixii dhacay. Waxaan la xiriiray 12 haween ah oo mid walba sheekadeedu ay la mid tahay wixii aniga aan soo maray ama igu dhacay. 2 bilood ka hor ayaan galay xafiis qareenno ku yaala New York, halkaas oo aan ku wareejiyay dhammaan wixii caddayn ahaa, markhaatigoodii iyo USB-gii yaraa ee aan ku keydinayo xogta. Kiiskaas si rasmi ah ayaa loo furay. Qaar ka mid ah dadkii ku lugta lahaa waa la qabtay. Naagtii ha ugu horreyso iyo nimankii aan soo arkay dhammaantood waa la xiray. Jasiiraddii waa la weeraray oo waa la baaray. Si kastaba ha ahaatee, taasi iguma filna, waana sababta aan maanta u hadlayo. Waxay isku dayeen inay aamusiyaan oo ay ku iibsadaan aamusnaanteyda $200 maalintii, balse anigu ma ihi qof la iibsan karo. Annaga nalama iibsan ee waa nala qasbay, nala qiyaameeyey oo nala dulmiyey. Weliba waa nala xoogay, qaarna waaba la dilay.
Haddii aad arrintan daawanayso muuqaalkayga oo aad gudaha ka dareemayso in wax aan sax ahayn ay jiraan, ha is indhatirin, hana iska indhatirin dareenkaada. Haddii lagu soo bandhigo shaqo u muuqata mid aad u fiican oo aan caadi ahayn, ama lagu ballan qaado lacag si fudud lagu helayo, ama uu qof isku dayo inuu kaa qaado taleefankaada ama uu kaa joojiyo inaad la xiriirto ehelkaada ama cid kale, ogow taasi inay tahay calaamad digniin ah. Ha ka labalabayn inaad ka baxdo xaaladdaasi. Ku kalsoonoo dareenkaada iyo feejignaantaada, maxaa yeelay mararka qaar iyaga ayaa noqda gaashaanka keliya ee noloshaada badbaadin kara. Haddii aad ka mid tahay ragga u haysta in awooddu ay ku siinayso difaaca iyo ka sarreynta sharciga, isla markaana aad aaminsan tahay in lacag lagu iibsan karo dadka iyo karaamadooda, ogow in la idin soo gaari doono. Anigu keligay ma ihi, mana cabsanayo mar dambe. Waxaan nahay dad ka badbaaday dulmigii naloo geystay, waxaana nahay markhaatiyaal runta sheegaya. Waxaan nahay xisaab idin hor imaan doonta. Aniga shakhsi ahaan weli si toos ah ulama kulmin Jeffrey Epstein, laakiin dhacdadan waxay qabsatay 2018 bilowgeedii. Ilaa iyo haatan waa markii ugu horreysay aan si toos ah uga hadlay. Tan iyo intaasna waxaan ku dadaalayay inaan badbaadiyo nolosheyda. Markii dambena waxaan go'aan ku qaatay inaan dib u soo faago wixii halkaasi ka dhacay iyo dhibaatadii loo geysanayay haweenka caalamka ee halkaasi lagu dili jiray, lagu qala jiray, lagu xoogi jiray, sida argagax lehna loo geli jiray. Waxna nagama quseeyo wixii rag halkaasi ku qabsaday, rag ayagu doontay, lacag ku bixiyay inay halkaasi kusoo tamashleeyaan. Laakiin waxaa xil naga saaran yahay dhibaatada dumarka loogu geystay jasiiradaasi iyo sida caddeymaha qarsoon loo soo bandhigi lahaa. Sheekadaasi waxaa muuqaalkan soo bandhigay ama soo duubay haweeney sheegtay inay ka soo badbaaday wixii jasiiradaasi ka dhacayay, dhibaatana loogu geystay, iyaduna markii dambe soo xaday feelal muhiim u ahaa dowladda Mareykanka si halkaasi ay uga tixraacdo wixii caddeymaha oo ku saabsan kiiskii Jeffrey Epstein. Waa ku mahadsan daawashada muuqaalkan. Haddii halkan aad nala soo gaartay, fadlan share gareyska xabada la wadaag. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir. Waa mahadsantahay.